بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على دمان خيارته علماءنا markay khayr Allah siiyay wacdi ama barnaamij diini ah inoo sheegayaan waxay ku furfurtaan af Carabi marka ani wax inta ka duwan ma sheegi rabo laakiin Carabi ku furfuro ma af Soomaaliya ku furfurana hadal intiisa waa hadalka Ilaahay hanuunna waa hanuunkii Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam wax kasto diinta gadaal looga darane waxay tuseedaa in yani diinta ay sadhamaystirneen marka in diinta gadaal wax looga daro waa wax reeban cid diinta wax uga gadaal uga dartane ilaa wax reeban ay sameysay way lunsan tahay cid lunsan waxaan ognahay inay cadaab ku dambeynayso horta Ilaahay naga haayo intaas kadib maalin dhaweedaan Facebook waxaan soo galiyay video oo aan dadka leeyahay Soomaaliya hadda nabad uma baahnay barwaaqo u baahantay barwaaqo hal raadiyo marka asxaab badan oo asxaabna waxay ugu dhaheen iyo ilbaxnimadan cusub ee adabada ka riixayda leedahay barwaaqo hal raadiyo waxa jirtay dhaheen dhalinyaro inta adduunyada tagaan wax barteen hadda wax waliba qaldooy hadee ma waxbaad qaldi rabtaa si wax u wadaa marka si koobana marka waxaan rabaa 8 albaab oo qof kasto idin kamid ah hadii uu furto oo horta qani noqonayo markastoo qof kasto idin kamid ah oo qani noqdo oo waxa uu rabo oo helo yaani dalkii oo dhan nabad iska noqonayo waayo waxa la isku dirro waa baahi laakiin hadii la dhargan yahay laba suuq isugu imaanaysa ma lahan marka 8daas irid ugu horeeyay waxa la yiraahdaa irida taqwada la yiraahdaa oo waxa u diila Ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan ويرزقه من حيث لا يحتسب ومعناه wax kala maahan qofka Ilaahay ka dhowrsada Ilaahay wuxuu ka risaaqaa meel uu san fileen oo waa loo kala kicinaa habi uu noqonaa marka qofka markuu taqwo la yimaado risqiga dhana u fududaanayo waxa laga yaabaa marka inay madaxa ku jirto tiraado islaadahay waa maxay taqwo marka si yar oo fudud af Soomaali ku sheegaa taqwada wax kala maahan ee waxa waa meesha uu Ilaahay ka rabay yuusan ka tabin meel uusan ka rabin yuusan ugu arkin marka meesha Ilaahay ka rabay yuusan ka tabin meel uusan ka rabin yuusan ugu arkin markaad istiraado anu waxa ma aqaan culimada ma anu tagaa soo weydiiya culimina weydiido ma baahnid waayo waxa u daliila suurta shams Ilaahay 10 jeer isku xigto dhaarana wuxuu ku dhaarnaa ugu dambeynta leeyahay fa alhamaha fujuraha wa taqwaha oo ah naf kasta waxaan ogeysiiyay qaladkeeda iyo saxeeda marka adigu waad ogtaa wax qalad ah wax saxaaye meesha Ilaahay ka rabayna taagnaaw meesha iska rabina ka dhumo wadada koowaad waa taqwa marka la timaado risqiga dhana lagu fududeynaa habiya noqonayda wadada labaad waxa la yiraahdaa tawakkul tala saarashada oo waxa u daliila waman yatawakkalillah fa huwa hasbu qofka Ilaahay tala saarta rabbi yaa ku filan marka hadaad Ilaahay tala saarato oo tira hasbi Allah wa ni'mal wakiil ee shaqada aad socoto aad hawlihi aad rabto aad doonato way ku fududaanaydaa oo tawakkalkaas Ilaahay gashatay oo wax walba ku fududeyna oo waxaan maqlaayay wadaad amaanuud arkay wuxuu ka sheekeynay wuxuu yiri wadaada wuxuu ku dhaxlumay wadamadan Sweden iyo gurigiisa oo ka lumay wax kala ma sameeyay salaado intuu istaago ilaa gurigan ka dhumay gurigii hadii marka tawakkulkaaga uu gaaro wax kastana Ilaahay weydiiyo tiraawir Ilaahay waa iga waragsantay igtoosi Ilaahay tawakkalkiisa kugu filan xasbi Allah wa ni'mal wakiil Ilaahay nagu filan waa wadada labaad ee taajirnimada iyo hantida lagu helo wadada saddexaad waxa la yiraahdaa istighfar Ilaahu yaaf damaanta dhan iska tiraado waxaana daliil u ah faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu samaa ila aakhir aayo oo yaani waqti kasta daatira Ilaahu yaaf Ilaahay samada ka soo daadina risq uma baahna xitaa inaa shaqaysato waxaan aad u maleeyd inaa xoog iyo aqal ku keenaydo uma baahna istighfar la soo jeeso oo maanta qof daatira ruulaal yaaf markuu ku cafi kadib xataa waxa galayso ninkan wax ugu dar dhaqaalasi marka wadada saddexaad ee lagu taajiro waa istighfaarta wadada afraad oo wada taqaanaan waxa wadada shukriga la yiraahdo thank you the way oo waxa u daliila la in shakartum la azidanakum oo Ilaahay noo ballan qaada dad wax yarad haysato aad tiraad alxamdulillah Ilaahay wuu ku badina marka waxa laga yaabaa inaa istiraado horta Ilaahay maxaa uga mahad celiyaa horta uu isii waa ku fududeeyaa marka Ilaahay saddex nimco ku sii nimcada koowaad ku sii waxa la yiraahdaa nimcatul wujuud nimcada joogitaanka waa joogtaa waa hadlaysaa waa taaganta hadda joogtaa waxaana ku tusaysaa kugu filan daliil
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بري وحاجرتي إنسان كordhan uusan ahaynba wax la sheego adiga xataa iska soo qaad xilligii dawladda siyaad bar xagaa jirtay xilligii aadan cadda xagee jirtay kasii fogay xataa aadan cadda ma ahane waxa geysaa xilligii maxaa la yiraahdaa Sayyid Maxamed Abdullah Xasan xagaa jirtay ama waa xilliga asxaabtii xagee jirtay marka maanta maadan joogin maanta joogtaa waa nimcada koowaad marka nimcatul wujuud la yiraahdaa nimcadaas aan ku sii nimcada labaad ilaahay ku sii waxa waaye nimcada lahaanshaha wax la yiraahdo indhaad leedahay aragaad leedahay maqalaad leedahay dhadhanaad leedahay caqliyaad leedahay cudaad leedahay ehelaad leedahay asxaabaad leedahay fikiraad leedahay inay nimcataana waxaad ku ogaa kartaa bal dhinacyadaada fiir qof aan intaa haysata haysanaa jiro nimcada saddexaad ilaahay ku siiyay nimcatul hidaayah hanuunka waay oo maanta qoladan Amazon iyo dhulkaas ku dhalanayso Brazil hanuuni waxaas waxba kama ogaba oo jaanis ay ku hanuunaan ama ay maxaa la yiraahdaa ay nolol ku samaystaan إلهي بمسين أدو ما أنت هنونا كودلة تضل مسلنا كودلة تيو هوي أبو مهر كودلين سد حداث إن معمرك حاله ويديو كلي thank you ده إله هو ما هتصن تاني والله إن شكرتم لأزيدنكم نركب وضد أفراد وإنتاج كل نقكرنا وأنا أتلا هذا الحمد لله وضد الشناد حالي هذا صلة الرحم أو هنا قرابة حريرسو محان الدليل واحد حديث النبي جاء أو ده من أحب منكم أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه أو معناه هذا محين قلنا أو كما قال معناه هذا نوحاوه ورقافك الربو إن الدنيا ذا الله قرحية أنت يوحو الربو لسيه وتتكاغ أو قرابة هذا حريري هذا تكنولوجيا اللي مروا يايو قرابة حريري وحاول نقضي لايك شير يكومنت قرابة جويس كانوا وحاول نقضي بلوك مركا حدا حتى سد أحداث استعماشه هلدا dad lacag kala aad u heen xataa aad follow gareysay share gareydo la socotood waxa waay waxa ku badanayo aad fahmidaa rizqi marka rizquna waa qanaacadi hantidin waa sideed ku helayda ka waran marka hadii xaq Allah aan u fikirno oo aad familkaaga qaraabadaada asxaabtaada aad xiriirido ilaahay rizqa meel buu ka keenaa wadadaas marka waa wadada shanaad oo rizqa oo la yiraahdo silatul rahim wadada lixaad waa wada taqaanaan waa salaada أو حدلوا آيات القرآن كإله أوليه وأمر بأهلك في الصلاة واستبر أو أنك الرزق سينه رزق كمربنا وما أنت مركها بتكتو إلهي رزق بدنه كسينا وحانك وفلا حال يري ننا ساحيف كيسر حوالي شيء ومقلع وأتجي ورديه يرد عليا وحيدنا هالمجلس يدحور نك صاحبنا وقلع لي بدي مركوا قلوا حوار كساحيف كيسر تكناي وصعر سو عرّا يقولوا يسوع أرض قيمة حول إلهي وعفي نينك أن شحاتك أدونتين وحويدي سربت إلهي إلا أضوك الشحادة أضانك الشحادة ربي وحيديب ساحيب كيسا صلاة مركو كبا حي اللي يرنين ساحيبك كويمد حول وانوغا نيكا وحشود بدنيه حولانا اللي قد بقيه مركا محاد قراني إذا حداد صلاة كو أتكاتو أقسم بالله وحكا معنانا ماله والتاجرين نوشة وحارتان إليه مركا وإريد اللحاد وأنا صلاة بديسا إريد التضباط وصدقة وحاول دليله ومن يخرج الله قد حسن يضاعفه يعني ويا إله الشير للجلاي وحن مغلا يقول فورك اللي هذا مقدش يجوكتو كلها يسا بقول دولار يديبه بقول يكون ترى كاعد دقيقة كورن ربي كو أبوره كوير بقول كيان لفظ بقول كاعد دقيقة وحضنا عن كوسي لا والله والدنيا آخرات كهلي ذا مركب وحا شاكير وحادرت وحالي النبي عليه الصلاة والسلام نيف أري وجرجي سكوقل الصلاة دي وسك عايشة نيف كويس صدقيسي هلو تمركوا عصر كيمي وعايشة مع النهار قاسي وعيت الجرب عن النهار حور الجرب كاس بس عنا كم خان ومعناه ذو أيته الدون كان هنتذا عاد شقيسته قريها عاد بسته جوارد عاد يلته ذهب كعاد قدرته درك عاد قدرته وحاصلا هنتي عاد هذيك اللي ذا معه لكن نص دولار كعاد صدقيسته dadka aad siida kaas bisa leedahay oo asaga iyo weyn ku soo noqaa inta afka joogto aakhirina soo lagu laba jibaarayo oo marka sadaqadu waxa waaye shaygan iridaad oo maxaa la yiraahdaa toddobaad ka xigta inaad qani noqoto irida ugu dambeeyay sideedaad waxa la yiraahdaa irida cilmiga oo hortana cilmiga markaad maqasho dada waxay la aadaan computerka baro physics baro علمي هرتو اللي وشيء قاسكوا مرضى وشيء ومعرفة الله وأنا دلها أخوان سنتا
وحاب الولاية ما دا كمبيوتر برته وحاد برتين معرفة خلق الله إلهي وحو أبور وحي أبورين أدبرنو يسا هدي أسي إيمان له أو حبرتنا علمي كستوب برنا إذا إلهه كبرا إلهه كحرا إلهي يبرنا إذا ربي كو أبورات فهمتوت برتنا والله وحاد كمار ميدا ورهبلو يديب ورهبلو يقرقار وركليا يحنون إذا دخترك حقوقو يالا waxaadhan waa ka maarmeeda isaga rabbiyaad mar walba u carreeda marka waa irida sideedaad ee naga xigto inaan qani noqon sideedaas irdood ilbaxnimo ay dabada ka riixayso iyaan rabnaa marka in yacni ummadii aan goysiino oo niraado war sideedaas iridaan u baahannahay marka qof kasta uu ku dhiirado oo qof kasta hadana waxaa kaloo jirto aayad quraan oo waxaa jirta aad aan u jeclo leedahay lima taquluuna ma la tafcaluuna wax kalena ma war waxaadan adiga sameyn dadka ha farin marka sideedii aniga ku dhaqmo sideedii aan sameeyaa wallahi qaniyaan ahay oo financialna qaniyaan ahay qanaaca qalbi ahaanna qaniyaan ahay adigana waad sameyn kartaa oo wax aqli u baahan ma wax aqoon u baahan maahan hadaa marka kulligeen talaabadaas wada qaadno dhaqaalihi dalkan noo kobca dalkii dhaqaalihiisa markuu kobco maxaa la yiraahdaa xakamuhu waa far umaanku diido qofka bini aadamka in la faro liira waxa samay liiraada nidaam darraba waayaba qofka haduu dharagsan yahay maba u baahnaba in wax loo sheego anshaxiya iska soo noqona qulubtiya iska dagaysa nabigana wuxuu noo sheegay wuxuu yiri diinta islaamka la isoo dir wax kale ma ahane makaarimul akhlaaq waay inaan akhlaaqda mujtamaca kor u qaado waay marka akhlaaqdeena waan dhiseynaa sideedaa shayna waan sameeynaa hanti badan aan yeelanaynaa haddaan Soomaalina markaan qani noqono والله مدحوينه iyo wasiir iyo qoladii markaan hogaaminayso waxa way maalinka xataa qodmad qabanayo qof jaanis weeraysa mal war madaxweynaha maanta hadlaaye waayo wax naga maqan malahan rabbigeena lagu wada xirmay oo xataa waxa daliil kale oo ah berigii hore u gumaystuun haystay yaqiinta Soomaalida ee xaq diinta islaamka aad u sarreeyay dad xalaal xuquuqda la iska ahaa yaqiintaas awgeed ilaahay si fudud nooga qaaday gumaystii waxa ku xigtay inaan falsafad shisheeye soo aqrinoon dimuqraadiyad iyo maxaa la yiraahdaa kaligistalis iyo riwaayada kale oo xaq ilaahay ma aan dhinac kale lagu wado maxaa aragnaa si reer bani Israa'iil 40 sano wareer ku jirnaa waa isla wareersannahay maxaa waay Soomaalida cibaadaadka la yiraahdo cibaadaat ash-sha'aa'iriya oo sumadaha ah soonka salaada sadaqada xajka iyo shahaadateynki aad ugu fiican tahay لكن هذا دقيقة مركو نبي نوشيغا محوري بني الإسلام على 5 إسلام لماذا شنا اللي قدول دسي معناه إذا ما إسلام لماذا شنا سال لو استاجي إسلام لماذا قدول صار إسلام لماذا مركو محاواي أنشحي وناك سنا واي قفكي أنشحي وناك سنا لها رب الله نقضى نولا شدنا توسيسو والله هذا الحلبان نوباهنين مدحوين نوباهنين عيدا نوباهنين ربي نوفنا وانا قنيا نقونينا مركو البحر لماذا أمبوش قرينينا وحكا لماها horta rabbi haloo noqdo rabbi markii loo noqdana wax kasta asaga hal weydiisto marka maanta intaasaan jeclaanahay la sheer gareeyo wax kale oo maxaa la yiraahdaa qoladaan iska dhaadhacsiisa waxbaan baranay falsafada ee isku dayaay inay islaamnimada shaki geliyaan oo ku leeyihiin Soomaalida dadka ugu aqliga badanana aqli ad ilaahay ku aqoonsan weyda aqli maahan oo Rajab Dawkins baa la yiraahdaa aqoon-yahan professor waa lagu leeyahay ilaahay ma jiro meel la meereysana marka nimayaho annaga caqiido qurux badan aan leenahay dad nadiif aan nahay jidka horaan ku soo noqonina sideedaa shay aan sameeyna qof kasta qofka walaalka ay gaarsi shay baashan oo kula toosto waxaan kale idinku gudaraa dharku caqiidada qofka ma sheego oo maanta duu suud qofka xirtay micnaheedu inuu siyaasi yahay ama aqoon-yahan yahay maaha hadduu qamiis iyo garbisaar maxaa la dhahay cimaamad iyo tusbax weyn oo qaatanay micnaheedu maaha sheekh inuu yahay inuusan hayn marka doonta adoo xiran iyaad qofnimadaada mar waliba wanaaji kartaa marka baasho aqligeena iyo subxaan la yiraahdaa aqoonsiga ha ka guuro dharka oo yaana noqon dharku ogaal ee aan noqon qofka jaanis inta la siiyo keena qaldanne yaan la dhihin waa qaldantay ko ku qaldamay inta loo tago hebel markuu ku qaldamay ma uusan ogeyn waxa uu sameeyay inay qalad tahay ka raali noqon oo dibanaha hal la qabto eedaysana yaan la qaban anshaxi hal la dhiso intaas aad igu soo gabagabeeyay waa mahadsantiin